wasiir qurba jooga oo carabaha ku koray siibahaan imaaraadka shirkadan tafakuro la yiraahdana sheer buu ku leeyahay maqla marka kaasi ma naxaayo ma qajilaayo waxaanu leenahay iscasil caalamka subaxnimadii saaka ayaa tagaasiilada kala duwan ee u kala goosha xaafadaha kala duwan ee magaalada Berbera ayaa waxay ku waabariyeysteen shidaalkii oo kor u kacay halkii litir noqday $1 markii hore qiimahaas uu ka jabnaa fishka CBTV waxa uu kurgalay xaaladda tagaasiilada bisay nooga waramaan waxyaabaha ay ka cabanayaan waxayna sheegeen in shidaalkii qiimihiisii kor u kacay iyagoo fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka wasaaradda horumarinta ganacsiga Soomaaliland Mustar Saajin waxaana hadaladoodii kamid ah asdatan anigoo kamid ah taksiilayaasha waxaan saaka ka mudaharaadnay shidaalkii oo nagu noqday $8,000 halkii litir annaguna wax ku qaadna $5,000 oo ilaa iyo haddana aanan maxay tolay isbixinaynin qiimi aanu ku soo saaraynay maalintii iyo $5,000 maalintii qaadaynay iyo halkii $1 shidaalku aanay islayn waxaan sheegayaa haddii ay wax ka qaban waayaan ganacsatada shidaalka iyo maayirka shiinhaamuhu haddii wax ka qaban waayo shidaalka qiimihiisu kor u kacay annaguna waxaanu ka dhigaynaa maxay tolay nafarkii aanu qof qaadi jirnay qiimaha halka litira shidaalka waxaan leeyahay u sheegay wasiirka ganacsiga haddii aan shaqadaada ka soo bixi kareen oo sida qiimaha salariga loo dejiyay fahmaynin daadeer ducaan kuugu darin annagu culays qaadi kari mayna meesha iskaga tag oo yidhi shidaalka waan jabinayna waxaad moodaa inuu shidaalku jabo waxa jabin kara waxa weeye iyadoo la sameeyo shidaalka laga dhigay in cid walba keento shidaalka cid gooniya baa loo xiro marka taasaa keeni karta marka waxa weeye hamaha loo furo qof kasta oo reer Soomaaliland oo keeni kara shidaalka naftiida ka bixi mayse marka intaas ku sugan wasiirka ganacsiga maalin horena war baan furay imikana waan ugu celinaya waa wasiir qurba jooga oo carabaha ku koray siibahaan imaaraadka shirkadan tafakuro la yiraahdana sheer buu ku leeyahay maqla marka kaasi ma naxaayo ma qajilaayo waxaanu leenahay iscasil caalamka markuu ninka saas kala noqdo uu iscasilaa ka hadlaya waxa weeye shidaalkii baa la nagu kiciyay saakadaas oo dambeysay $8,000 lagu daray 10 litir waxay marayaan imika 85 baa saaka leega siyaaniga marka waxaanu leenahay dawladda iyo madaxweynahaba ma anigu haddaanu nahay dhalinyarta anigu imika waa iska dhigayaaba imika iska dhig baa islahaaba marka anigu waxaan leenahay madaxweynaha anigu waanu kaaga tegaynaa oo taas anigu xamar baa waanu qabanaynaa marka idinku qiimihii hore aad dadka ku qaadi jirtay muxuu ahaa wuxuu ahaa $5,000 imikana $5,000 dadkiina ma ogola oo maba haystaanba $7,000 baan ugu maalin $7,000 maba ogolaba dadkii saakana waa wataan dana la sii kordhiyayba oo shidaalkii waa qaali sax marka fariinta ugu dambaysa wasiirka ganacsiga u dirsaa wasiirka ganacsiga waxaan u diraynaa inuu waxaan wax ka qabto isaga mar hadduu xil saaran yahay dawladda ganacsiga inuu wax ka qabto ayaanu u diraynaa waayaha iyo xaaladda lagu jira sicirbararka maanta sicirbararku shidaalku waa iskaarsiintii dhamayd magaalada Berbera waa magaalo xeebeed waan ka duwanay magaalooyinka kale lugeyn lama geli karo tagaasida yar waxay qaadaan adduun waa $5,000 waxay u kala masaafaan meel 2 kilomitir ama 3 kilomitir qofka lagu qaadaa siga Hargeysa dhaweeyay lacag badan kama qaadaan dadka u daneeyaan inay ganacsatadii shidaaleydahayd ay shidaalkii ka dhigaan 4,400 oo 4,800 litir u dhigaan aqalgal maaha waxa leeyahay dadkiina u naxa ganacsatada laftigeeda markuu sicir bararku dhaco qaar baa ka faa'iideysta oo shidaalka kaydiya oo raashinka kaydiya oo meel ku qariya oo maalin bay soo daaqay qiimo ku jira kuwaana waxa leeyahay xoolo waa niga xaaraan ha iska xaartimeynina ha dhimina dadka wala inay dadku taariimin ma rabna dhalinyarta Soomaaliya waxa badan 70% waan dhalinyar inay taariimin ma rabna inaan isticmaalin ma rabna inaan fikirin ma rabna dad wada aqoon lahaaya tartiibaha wata waxa lagu masruufaya tartiibaha lagu iibiyo u wataan si masaariif iyo wadankooda ku nagaan wadan war la isku naxo wasiirka ganacsiga waxa leeyahay jeebkaaga ka aragtay waa jeebkaaga waa nin aad jeebkiisa ku arkay waa express waxa uu joogay Yurub iska joogay wuxuu iska yimid Soomaaliland iska fadhiisatayo fi ay dhala saaray hayo nimco waqti waa loo samaray ma oga wuxuu xafiis cad guri cad gaari cad nolol iska fadhiyo 10 kun mushahara ma ogayaan ka dayarta gaariga wata wuxuu ku sugay
laakiin mar yeeli doona hadduu sicir bararku ka sii bato mid lacag haystay mid haya faraha la isku wala ismoobaya qiimaha shidaalka ayaa maalinba maalinta ka dambaysa kor u sii kacaya isagoo caqabado waaweyn ku noqonaya bulshada kala duwan waqti xaadirkan uu shidaalku kacaya ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli ay abaaro baasan ay dalka ka jiraan xamse axmed ciid wararka telefishinka caalamiga ee codka bariga afrika magaalo xeebeedka berbera